waa gabdho iskoodu soo abaabulay oo ka shaqaynaya hagaajinta iyo dib u habeynta kitaabka quraanka kariimka. waa hawl isugu jirta soo ururinta kutubada duugoobay ama jeexjeexmay ee malcamadaha quraanka kariimka, masaajida iyo xaafadaha magaalada Muqdisho. gabdhahan ayaa isu qaybiyay dhowr kooxood. qayb iyaga kamid ah waxay u xil saaran tahay kala saaridda kutubada duugoobay ee la soo ururiyo, sida ay sharaxayso Xafsa Cabdullaah. qolkan waxa lagu qabtaa shaqada marxaladeedii labaad. kutubtii la keenay ayaa lagu kala soocaa sida ku qoran iridiisa qolka kala saaridda ama kala soocidda kitaabka quraanka. gabdhahan shaqada ay hayaan kutubtii la keenay oo isugu jiro nooc walba, kuwa dib loo hagaajin karo iyo kuwa khalaas ah oo dib loo hagaajin karin. marka qolkaana lagu kala soocaa. halkan waxaa noo saaran kutubta aan rabno dib inaan u jaldiyeyno oo wixii ka maqanna aan gelino, kadibna la geeyo masaajidadii iyo goobihii loogu cibaadaysanayo quraanka kariimka aqrinta. gabdhahan mutadawiciinta ah isku howlay inay dib u habeeyaan kutubada quraanka kariimka ee ku dayacan dugsiyada quraanka kariimka ee Muqdisho. halkan waxay u tahay maktabad ay ku soo ururiyaan kutubada. kubanna waxay qayb ka yihiin kutubo ay dib u habeen ku sameeyeen oo ay hagaajiyeen isla markaana ay isku aadaadiyeen. hawshan mutadawacnimada ah ee ay qabtaan gabdhahan iskoodu soo abaabulay ayaa waxa ay soo martaa dhowr marxaladood. mid ka mid ah marxaladahaasi ayaan kula kulanay iyadoo gacanta kula jirta Fawziya Muuse. okay bismillaah. warqadana u jeedid waxaan iskugu celinaa lamadan. waxaan rabnaa kitaabkan inaan iskugu celino. saas ayaan sameeynaa. saas ayaa loo sameeynaa kitaabka. andan kitaabka markii oo la sameeyo saan wuu ka dheeryahay u jeedin dabcan. saayiduu ugu dheeryahay marka kan waxaan u isticmaalnaa inaan ku jirno kitaabka. waxaan rabnaa inaan warqada aan iskala ekeysino garbadka kitaabka. waana calaameysanaynaa kitaabkii markii aan calaameysano lianno haddaan maqas u isticmaalno manoo toosayo. andan geedkan ayaa saan u saareynaa. dib u habeyn waqti qaadatay kadib ayaa kutubada quraanka kariimka ee halkan lagu hagaajiyo waxaa dib loogu celiyaa dugsiyada quraanka kariimka iyo masaajidada. ayaan Cabdullaahi waa mid ka mid ah gabdhahan isxilqaamay. waxay aaminsan tahay hawl looga baahnaa shacbiga Soomaaliyeed in ay u istaageen. kelmad yar oo ah moobilkii halaababa markaba waan sameynaa, maradii dilaacdana harqaan baa la mariyaa. ayaa u maqan kitaabko mas'uuliyad dareema. wixii inaga shakhsi aanu lahayn waan ka shaqeynaa, laakiin kaas Allah baa inagula xisaabtamaya haddii aynan u gargaarin. salaamu calaykum. qaybtan waa qaybta ugu dambaysa ee hagaajinta kutubada quraanka kariimka ah. halkan sida aad u jeedaan hawsha ka socota waa hawshii ugu dambeysay ee dib loogu habeynayo kutubada quraanka kariimka ah ee laga soo ururiyay dugsiyada quraanka kariimka. kutubkan waxa uu qayb ka yahay kutubada quraanka ee laga soo ururiyay dugsiyada quraanka kariimka ee gabdhaha qaybta ka ah ololahana ay dib u habeynta ku sameeyeen. iminka waxa uu diyaarsan yahay in dib loogu celiyo dugsiyada quraanka kariimka ee laga soo qaaday markii hore isagoo dayacan. waana mid u diyaarsan in wax ay ku bartaan ardada Soomaaliyeed. xaliimo cabdiraxmaan faarax xaliimo nasro waa maamulaha xarunta Ummul Khayr ee ku gacan siisay gabdhahan in hawshan halkan ay ku qabtaan. waxaan weydiinay waxa keenay in xilligan ay martigeliyaan gabdho mutadawiciin ah oo isu howlay inay dib u habeen iyo hagaajin ku sameeyaan kutubada duugoobay ee quraanka kariimka. dhiirigelinta guriga ka soo saaridda kulli wuxuu u baahan yahay in la isku garabsado. insha Allah masaa'ib badan oo dalkan ku degtayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa
inuu uga dulqaado ummadda Soomaaliyeed ubadka guryaha ummadda kulli inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku barakeeyo. Hodan Faarax Maxamed waxay qayb ka tahay kooxahan mutatawiciinta ah ee isxilqaamay. waxay baaq u daraysaa guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed. waxaan ma aragtay ku boorinaya qof kasta oo muslima oo ummadda Nabi Maxamed ah sida la idkugu sheegay in dhaqaalahaas uu yahay mid ka yimid gacmaha gabdhaha muslimaadka ah oo Muqdisho ku nool ay bixiyeen in nalagala qayb qaato. waa ku boorinaya walaalaha muslimiinta meel walba ay ku nool yihiin. halkan waa xarunta munadamad Ummul Khayr waxaana ka soconaya olole dib loogu habaynayo kutubada Quraanka Kariimka ee ku dayacmay dugsiyada Quraanka masaajida iyo guryaha. waxaana laga soo ururiyay kutubada Quraanka Kariimka ee halkan lagu hagaajinayo goobo kala duwan oo ku yaala gobolka Banaadir. waxaana hawshan wada gabdho isxilqaamay oo iskood isu abaabulay. Xasan Kaahiye, Som News TV, Muqdisho.